waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada magaalo taariikhi ah ku soo dhawaada meel runtii ahayd meel siyaasi oo soo jireena oo ah halkii uu runtii laga gardaadiyey madaxweynihii hore ee maxamed xaaji ibraahim cigaal uu labada kabood ka xidhay maantana insha allahu tacaala waxaannu labada kabood uga xidhaynaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi madaxweynaha mustaqbalka dhow insha allahu tacaala mudana madaxweyne iyo guddoomiye laan milaaxo waxay heegan ku soo jirtay 7 sano oo uu xisbiga wadani jiray waxaanay ku sii jiri doontaa heegan inta dambe aynu dalka ku guulaysanayno hoggaankiisa insha allahu tacaala maanta waxa u socotaan waxa weeyaan diiwaangelinta oo keliya laakiin insha allahu tacaala markay inoo gaadho xog badan baynu kala qaadan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo maanta waxaynu soconnaa waa diiwaangelintaas sidaa la sheegay kaadhka inoo qaada kolley kaadhku sanduuq ma yaallo laa milaaxo wuxuu yaallaa xaaj saalax dhib kasta ha idinku ahaatee maxay haytay waxa loo baahan yahay wixii kale ee talaa iyo wixii caawimo ayana dee kolley wax la gegeysaye horta inaad kaadhkaa soo qaadataan haddii la yidhaaho mar haddaa kaadhkaa soo qaadataanna codkaasaynu wax iskaga celinaynaa haddii la yidhaaho mudane musharax madaxweyne iyo guddoomiye magaaladani waa magaaladii anigu codkii ugu badnaan iyo xasakaysaba iyo xuseen aadan aanu ka helay marka halkan waa ku dhaartaay oo waa magaalooyinkaan ugu jecelahay ile waa meeshii meeshanna hadday meeshani ku maaragtay madaxweyne laa milaaxo haddii ay ku saarto maaragtay taajka waa bartii layga saarayoo iminkana adigay ku saareen dee aan la yidhaaho ilaa iyo 60kiina waxbay soo dhisayeenoo siyaasadda soomaalida oo dhan caan bay ka yihiin kaabaddii xisbullaahi waa taa ku taalla laan milaaxo iskuma cusbin halkanna waa ka soo jeeda waxaa laga yaabaa inta badan inay abtayaashay tahay waan idin salaamaynaa reer laan milaaxo dhammaantiin waa magaalo taariikhi ah waa meeshii ay ka bilaabantay siyaasaddii lagu xoreeyey ingiriiska lagaga xoreeyey ingiriiska somalilan kaabadda halkaa ku taallaa taariikh fac weyn bay tilmaamaysaa waxaannu maanta idinku nimi waa ogtiinoo dee xilli oloola ma aha laakiin waxaannu idinku nimi inaannu ka qayb qaadanno wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha halkan dad badan baa ka codeeya dhallinyaro badanna dee way koraysaa oo way qaangaadhaysaa waa magaalo ku taalla xuduud 2 dawladood u dhexeeya oo dadkeennu labada dhinacba way ka degan yihiin dhinaca Itoobiya iyo dhinaca Somalilandba waa la doonayaa wacyigelintu inay labada dhinacba gaadho haddii ilaha idmo arrinta deegaanka u xil saaran xildhibaanada u xil saaran marka wacyigelinta annaguna waxaannu ka qayb qaadanaynaa uun inaannu farriinteeda gaadhsiinno jamhuuriyadda Somaliland oo dhan waa kala socoteen meediyaha intii diiwaangelintu bilaabantay socod baan ku jirray welina waannu sii soconnaa dalkii maanaan dhammayn waxaannu idin faraynaa uun in la isdiiwaangeliyo marka laan milaaxo iyo gobolka daad madheedhba odayga waa kii halka ka sheekaynayey wax badan bay tabaysaa daad madheedh guud ahaan waddanku nidaamkiisu dib uu korayaayoo inta badan dunida marka horumarka la qiimaynayo marka koowaad dadka la xisaabiyaa maxaa dad ku nool meesha imisaa isdiiwaangeliyey imisaa codeeya arrintaasaa lagu saleeyaa
tacliinta iyo waxbarashada iyo horumarkaba marka hore waajibaadkeena aynu ka soo baxno oo inagu aynu isdiiwaangelinno waajibaadka labaadna xukunka markaa ka jira iyo maamulka Soomaaliland uu saaran yahay in si cadaalad ah wax loogu qaybiyo dalka insha Allah xaq aleedin iyo kadaad mar leeyahay waa helaysaan waxaan idin min 2017 anoo madaxweyne u sharaxan waxaan idin min 2005 anoo mudane baarlamaan u sharaxan maantana musharax madaxweynena codkiinu ma ku noqon kara madaxweyne miyay la doonaysaan horta miyay la doonaysaan haddaba isdiiwaangeliyo codeeya salaamu calaykum